En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo. maxkamadda ugu sarreysa dalka Spain ayaa go'aamisay in la soo qufo meydka hogaamiyihii kala taliska ahaa ee Francisco Franco si loogu aaso goob kale. waxaa go'aankaas taageertay dowladda hanti-wadaagga kaas oo la doonayo in meydkiisa laga soo saaro qabuuraha dowladda si loogu aaso qabuuro kale. qoyska Franco waxay racfaan ka qaateen go'aanka lagu soo qufayo meydkiisa, balse maxkamadda dalka ugu sarreysa ayaa diiday codsigooda racfaanka. waxay arrintani dalka Spain ka dhilisay dood aad u kulul. haddaba waa kuma Francisco Franco? waxa uu noqday generaalkii ugu da'da yaraa ee soo mara dalka Spain sanadkii 1926 xilligaas uu jiray 33 sano oo keliya. kadib sanadkii 1936 Franco iyo saraakiil kale waxay ka qayb qaateen kacdoon kaas oo horseeday dagaallo sokeeyo oo socday muddo 3 sano ah, aadna loogu hoobtay. waxaa caawiyey Naasigii Jarmalka iyo Mussolini Talyaaniga ahaa. Franco wuxuu guulo ka gaaray dagaalkii sokeeye sanadkii 1939 waxa uu noqday kalitalis isagu isugu dhawaaqay inuu yahay madaxweynaha dalka Spain. waxaa kale oo Franco lagu xusuustaa inuu xilka hayay ilaa iyo sanadkii 1975 markaas oo wixii ka dambeeyay dalka Spain uu noqday dal dimuqraadi ah. haddaba wixii warar ku soo kordha qodobkan waxaad si toos ula socon kartaan channelkayga Fuad Qabyaladeed. fadlan like, share, comment waxaan idinku codsanayaa inaad igu caawisaan dhinaca subscribe-ka. mahadsanidin.